Shaqaale dhismahan oo howl ka wada dabaqan ayaa uu bilaabay inuu gariiro. Waxaa la maqlayay dhabaqii biraha. Maamulaha goobtan oo John Garrett la yiraahdo ayaa isagoo murugaysan oo nin kale la doodayay. Intuu gurigu sii socday wuxuu idaacadda ka maqlay dhagax aad u weyn oo dhulka ku soo socday. Saynis yahanadu waxay filayaan in dhagaxan uu soo afjari karo nolosha meerahan ka jirta. John markuu guri yimid xaaskiisa Alison oo saarneyd treadmillka ayaa u muuqatay mid aan ka warqabin wax la sheegayay. Wiilkooda Nathan ayaa soo galay kaasoo ku faraxsanaa inuu aabihiis arko. Cunugan yare wuxuu qabaa cudurka macaanka ama sokorta oo insuliintan ayuu ku tiirsan yahay. Dabadeed saddexdoodu ayaa wada daawaday wararka. Telefishinka waxaa laga hadlayay dhagaxii weynaa oo waxaa la sheegay inuu xawli ku socdo oo ayna la socdaan boqolaal kale oo yaryar. Waxaana sidoo kale dadka loo xaqiijinay inaysan jirin wax khatar ah oo aysan welwelin. Habeenka John wuxuu alaabtiisa suuq geeyay qolka martida isagoo isku dayay inuu wax uun sameeyo. Subaxii waxay mar kale warar ku sheegeen in laga yaabo in dhagaxaantii yaryaraa ay dhawaan dhulka ku soo dhacaan. Maadaama ay maanta ku beegan tahay dhalashadii Nathan, aabbahan ayaa wiilkiisa suuq u kaxeeyay. Dadkii oo dhammi kor ayay eegayeen. Mid ka mid ah dhagxaantii ayaa haatan la arkayay. Qof walba oo uu joojiyay wixii uu sameynayay. Isagoo yaaban John ayaa taleefankiisa u qayliyay. Fariin madaxweyne ayaa soo gaartay. Waxaana xigay wicitaan loogu sheegay in isaga xaaskiisa iyo wiilkiisa loo doortay inay ka mid noqdaan dadka la badbaadinayo, kuwaas oo meel kale la geen doono. Ma jirin cid kale oo suuqan ku sugan oo ay fariintan soo gaartay. Jaawareerkiisana cabsi ay isku beddeshay. Dhan kale guriga, isla fariintan waxay kasoo muuqatay TV-ga, balse Alison maysan arag. Intuu guriga ku noqonayay John wuxuu arkay kolonyo baabuur military iyo diyaarado xamuul ah oo hal dhinac u socday. Wuxuuna dareemay inay wax qaldan yihiin. Guriga, dadkii dariska ayaa u yimid xafladii dhalashada Nathan. Aan wax fikrad ah kaysan wax jira ay iska faraxsanaayeen. John oo Alison dhinac u jiida ayaa weydiinaya inay fariin heshay. Markay maqashay wuxuu sheegayo ayay moodaa inay tani tahay khiyaano dowladeed. Laakiin isagu wuxuu aaminsanaa in arrinkan uu dhab yahay. Waxay ku noqdeen qolkii fadhiga iyadoo qof walba uu si leef ah u daawanayay qayb ka mid ah dhagaxii oo la filayay inuu kusoo dhaco badweynta Atlantikada. Carruurtii oo xiiseynaya inay arkaan waxa dhacaya ayaa tirinayay 1, 2, 3, balse waxba ma aysan dhicin. Kadib hal mar dhulkii ayaa gariiray. Muraayadihii ayaa gilgilmay. John markuu dibad u baxay shimbirihii hawada sare socday ayaa kala cararay. Markuu gees fiiriyay oo soo jeestay ayaa dabeel hir ahi ay kala turtay oona muraayadihii waa ay burbureen. Gudaha, codkii wariyaha argagax ayaa ka muuqday. Gobolkan dhagaxa ma uusan ku dhicin badda oo wuxuu ku dhacay oo uu burburiyay magaalada Florida. Qaraxiisa waxaa laga dareemay dhammaan magaalooyinkii kale. TV-ga, sawirradii dayax-gacmeedka ayaa muujinaya waxyeelladii dhulka soo gaartay. Qof walba waa u naxsanaa. Bal su'aasha aan weli la isweydiin ayaa ah in haddii hal dhagax uu sidan dhulka u galay sidee noqon karaan kuwa kale. Waqtigaa taleefankii John ayaa mar kale qayliyay. Fariintii madaxweyne ayaa soo gaartay. Fariintan hal mar ayay kasoo wada muuqdeen taleefankiisa iyo TV-ga oo qof walbaana u arkay. Waxaa fariintan raacsaneed shuruud ah inuusan soo wadi karin qof aan familkiisa ka tirsanayn. Kood uu saldhig military ku gali karo ayaa taleefankiisa ku soo dhacday. Dadkii dariska ayaa murugooday markay ogaadeen in ayaga aan loo dooran dadka la badbaadinayo. John iyo Alison ayaa si degdeg ah alaabtooda u soo xirtay. Insuliintii Nathan, cunto, biyo iyo wax kasta ay u baahnaan karaan ayay soo qaateen. Inanku wuxuu hooyadiis weydiinayay awoogiisa, laakiin hooyadu ma aysan dhageysanayn. Waxay arkeen cirkii oo dab isku shareeray oo qayb ka mid ah dunidana ay gubanayso. Markay sii baxayeen nin daris ka mid ah ayaa istaajiyay oo ka codsaday inay u sheegaan halka ay aadayaan. Laakiin John ayaa xaqiijiyay inuusan laftiisu garanayn. Habeenay kale oo daris ka mid ah ayaa baabuurkooda hor istaagtay. Waxay ka baraday inay kaliya cunugteeda u badbaadiyaan. Laakiin qoyskan ma awoodaan inay sidaas sameeyaan oo horay ayaa loogu sheegay inaysan qof kale soo wadin. Kaliya dadkii fariimaha loo soo diray iyo qoyskooda ayaa goob ay ku badbaadaan la siinayaa. Magaalada oo dhammi mugdi ay sii noqonaysay. Dukaamadii waa la bililqaysanayay. Markay dul yimaadeen wadadan oo ay kumanaan baabuur ku xayrneed ayaa John oo ka xeeladaystay oo waddo kale ayuu ka leexday. Wuxuu raadiyaha ka maqlayay in magaalooyin badan oo meerahan aan ku noolnahay ah goor horeba carrada lagu daray halka kuwo kalena ay goor dhow ku xigi doonaan. Waxay aqalkii qoyskan soo gaareen saldhigga ciidamada cirka oo ay askar hubaysan ilaalinayeen. Dad badan ayaa eridda laga celinayay iyadoo ku baryootamaya in gudaha loo ogolaado. John wuxuu tusay koodkii oo askartan ayaa iskangareysay oo isaga iyo qoyskiisa gudaha ayaa loo ogolaaday. Xitaa gudaha jahwareer ayaa ka taagnaa. Si loo aqoonsado dadka fursadan la siiyey waxaa gacanta loogu xirayay jijimo. Waxaana qoys walba loo sheegay in hal boors oo kaliya la ogol yahay. Intii alaabtooda hal boors kugu geenayeen John wuxuu waayay insuliintii wiilkiisa oo gaariga ayuu ku laabtay. Waqtiga Alison oo isku dayaysa inay saraakiisha u sharaxdo waxay soo hilmaameen ayaa afkeedu uu soo qabtay macaankii ama sokortii uu qabay Nathan. Saraakiishii ayaa codkooda u isbedelay markay warkan maqleen. Maadaama aan loo galin in la badbaadiyo qof qaba cudurradan halista ah ayaa Alison iyo wiilkeeda banaanka loo saari doonaa. Waxay isku dayday inay barido laakiin go'aankan waa kama dambeys oo iyada iyo Nathan banaanka ayaa looga soo saaray saldhigan. Dhan kale John oo insuliintii wada ayaa soo laabtay isagoo aan ka warqabin waxa dhacay. Wuxuu orday dhanka diyaaradaha isagoo wareer ka raadinaya.
wuxuu raacay diyaarad xamuul ah oo ka ciribtay isagoo weli isku dayay inuu Allison la xiriiro. nin rakaab ka mid ah oo insulintii arkay ayaa si hoose ugu sheegay inuu qarsado maadaama bannaanka loo saarayo dadka cudurran qaba. waqtigaa John wuxuu fahmay waxa dhacay, isagoo walwalsan ayuu dalbaday inuu diyaaradda ka dego, laakiin kahor intuusan bixin fowdo ayaa bilaabatay. albaabadii saldhigga waxaa soo jabsaday dad rayid ah oo gudaha kusoo qulqulay. rasaas nolol ayaa dadkii loo adeegsanayay. mid ka mid ah diyaaradihii oo uu shidaal ka daadanayo ayaa uu dab qabsaday. John wuxuu qof walba ku amray inay soo baxaan. dabeed diyaaradii ayaa qarxday. qiiq, qaylo iyo rasaas ayaa isku darsoontay. markii xaaladdu yara degtay, John wuxuu ogaaday in Allison iyo Nathan loo diiday inay gudaha ku sugnaadaan, sidaas darteed bannaanka ayuu ka raadiyey. isagoo quus taagan ayuu arkay gaarigooda oo maqan. Allison ayaa fariin u reebtay oo wuxuu u sheegtay in Nathan ay u waday guriga aabbaheeda. intay sii waday durba heerkii insuliinta Nathan ayaa hoos u sii dhacay. waxay gashay farmashiye oo waxay ogaatay in heerka sokorta dhiigga Nathan uu aad u hooseeyo, sidaas darteed qaboojiyaashii la bililqaysta ayay ka dhex baartay insuliin. xaaladii goobtan ayaa kasii dartay kadib markii ay farmashiyaha soo galeen kooxo burcad ah oo si toos ah dadku tooganaya. iyadoo rasaastu ay socoto, qaylo ayaa dhinac walba ka yartay. Allison oo Nathan wadda ayaa soo oroday. waxay ku guulaysteen in albaabka dambe ka baxaan. waxay raaceen gaari ay wateen lamaano dhinaca waqooyi u socday, balse lamaanahan waxay islamarkiiba indhaha ku hayeen jijimihii gacanta ugu xirnaa cunugan iyo hooyadiisa, oo waxay fahmeen inay iyagu ka mid yihiin dadkii la siiyey fursadii badbaadada. intay sheekaysanayeen, su'aalaha lamaanahan ayaa u muuqday kuwo qaab daran. daqiiqada kadib gaarigii ayay istaajiyeen. Allison ayay bannaanka u tuureen oo jijintii gacanteeda ayay ka reebteen. si degdeg ah ay goobtan uga carareen, iyadoo Nathan oo weli gudaha ugu jiro, halka hooyadiina ay ka tageen iyadoo quus taagan oo dhiigaysa. dhan kale, John wuxuu helay gaari xamuul u socday dhinaca waqooyi, kaasoo ay rag kala saarnaayeen. Colin ayaa raggani ka mid ahaa, kaasoo sheegaya inay u socdaan dhanka Canada, halkaasoo duuliyo diyaaradeed uu dadku u qaadayay gabaad fiican oo Greenland ku yaala. John oo ninkan si dhow u dhegaysanaya ayaa waxaa gashay inuu mar kale qoyskiisa la kulmi karo. intii safarka loogu jiray, ninkii kasoo horjeeda ayaa eegaya jijintii gacantiis ku jirtay. ninkan wuxuu John ka dalbaday inuu jijinta soo wareejiyo, balse waa laga diiday. sidaas darteed dagaal baan ayaa ka dhex qarxay gaarigan socday. dagaalkani ayaa dhimasho isku beddelay. darawalkii kontaroolka ayuu lumiyey oo gaarigiina waa uu rogmaday. dadkii ayaa kasoo daatay. John oo dhigbaxaya ayaa kasoo gurguurtay baabuurka. midka ninkii soo weeraray ayaa dhinac yaalay, soo kalena Colin ma uusan badbaadin. mar kale Allison ugu dambeyntii waxay idu raacday gaari u socday saldhig militari oo u dhowaa. waxay rajaynaysaa inay Nathan halkaas ku aragto. waqtigaa Nathan oo ay wateen dadkii afduubtay ayaa saldhigan yimid. intii la eegayay jijimadii gacanta ayaa wiilkan uu askarta u sheegay inaysan dadkan ahayn waalidkiisa. isla markiiba askartii ay afduubayaashii xirtay. waxayna Nathan geeyeen teendhooyinkii caafimaadka. saacado kadib, Allison oo saldhigan soo gaartay ayaa Nathan baadigoobaysay. way farxday markay aragtay isagoo la dabiibayo oona insuliintii la siiyey. kalkaalisaan oo cunuga caawisa ayaa Allison u sheegtay in la saarayo gaadiid u socday magaaladii aabbaheeda, iyadoon u ballan qaaday inay siin doonto agab caafimaad kahor intaysan bixin. dhan kale, John oo galay guri cidla ah ayaa helay cunno iyo biyo. wuxuu shitay TV shaqaynaya. wuxuu warar ku arkay in 24 saac gudahood uu dhagaxii weynaa soo gaari doono meerahan, sidaas darteed waqti ma uusan iska lumin. gaarigii bannaanka yaala ayuu qaatay oo wuxuu maray waddooyin cidla ah, isagoo si toos ah u tagay gurigii Allison aabbaheeda. markuu yimid, odaygii ay asxaabtiisa turub iskala ciyaarayay. labadooda oo iskaashanaya ayaa dhinac askariyay khilaafkii hore ugu dhexeeyey. John wuxuu odayga ka dalbaday inuu Allison iyo Nathan la raadiyo kahor intaysan musiibadii weyneed dhicin. dhan kale, Allison iyo wiilkeeda oo kaalin shidaal istaaga ayaa soo wacay guriga. aabbihii iyo seegeeda ayaa isla markiiba u yimid. ugu dambeyntii, qoyskan ayaa dib u midoobay. gudaha guriga, John wuxuu xaqiijiyay in macluumaad ku saabsan hoygii Greenland uu yahay mid dhab ah. sidaas darteed, Allison ayuu ku qanciyay inay u socdaalaan dhanka Canada, halkaas oo ay diyaaraduhu weli shaqaynayeen. si dhaqso ah ayay laabtooda u soo xirteen, iyagoo isu diyaarinaya safarkan aan macquulka ahayn ee ka horeeya. laakiin Allison aabbaheeda ayaa diiday inuu halkan ka tago. waqtigaa waxaa si lama filaan ah magaalo u dhoweed uu kusoo dhacay qayb yar oo dhagaxii ka mid ah. qaraxii dhagaxan ayaa ruuxay guryaha. haatan iyagu ma haystaan waqti dheeraad ah oo ay ku doodaan. waalidkii ayay macsalaameeyeen. aabbahan wuxuu John siiyey qori, kadibna si kheyr leh ayay u kala tageen. waxay safarkooda socdaanba waxay aakhirkii soo gaareen waddo xaniban oo ay baabuurta ku go'doonsan yihiin. dhagaxaan yaryar oo dab oo kale ah ayaa hawada sare ka soo dhacaya. gawaari badan ayuu dab ku qabsaday, dadkuna waxay u ordayeen inay gabaad helaan. John waxa uu suurtagashay inuu gaariga kala wareejiyo oo uu raadiyo meel ay ku gabadaan, halka Allisonna ay Nathan gadaal ku haysay. waxay gaareen buundo shub ah oo dadkii badbaaday ay ku wada urureen. laakiin marka John uu arkay nin ku xayran gaari gubanaya, ayaa uu orday inuu caawiyo, sababtoo ah badbaadinta hal qof xitaa waa muhiim. habeenka iyagoo dabkii soo dhaafay ay Canada yimaadeen. idaacadda ayaa xaqiijinaysa in dhagaxii weynaa uu soo dhawaaday, kaasoo 75% burburin doona dhammaan nolosha dunida. waqtigii oo isguraya, qoyskan ayaa soo dhex maray duur cidla ah. waxay arkeen diyaaradda sii baxaya oo daadgureynaya dadkii ugu dambeeyey. markay garoon galeen, waxay runway ku arkeen diyaarad yar oo ki ciribtay.
John intuu gaarigii sheelrareeyay ayuu diyaaraddii is hor istaagay. Duuliyihii wuxuu ku khasbanaaday inuu joojiyo. Wuxuu sheegay in diyaaraddu ay buuxdo, laakiin John oo si daran u baryay ayaa aakhirkii isaga iyo qoyskiisa loo oggolaaday inay soo koraan. Diyaaraddii hawada sare ayay gashay. John oo yara gamaanyooday ayaa dib u xasustay noloshoodii hore. Markuu soo toosay, diyaaraddu waxay dul maraysay Greenland oo ahayd gabaadkii ugu dambeeyay ee aadanaha. Qaybtan dunidu caadi ayay u muuqatay, waxaana ka jiray ammaan buuxa. Laakiin ilbiriqsi gudeed hal mar cirkii ayaa iftiimay. qayb yar oo ka mid ah dhagaxii weynaa ee asalka hoose ee badda ku dhacay, oo tani waxay keentay shoog weyn oo hawada sare laga dareemay. Diyaaraddii si xoog leh ay u sii socotay oo labadeedu matoorna way istaageen. Sidaas darteed duuliyuhu wuxuu isku dayay inuu meel nabdoon ku dejiyo. Waxay ku dhaceen baraf aad u weyn oo jahwareer ayaa halkan ka dhashay. Duuliyihii oo gudaha ku xaniban ayaa sii nafbaxayay oo Johnna uu awoodi kari waayay inuu badbaadiyo. Wuxuu meel fog ka arkay diyaarad militari oo sii degaysa oo dadkii badbaaday oo halkaas u kaxeeyay. Askartu gawaari ayay dadku gurayeen iyagoo geenaya hoy dhulka hoostiisa ah. Intay sii socdeen waxay maqleen dhawaq daran. Dhagaxii weynaa ayaa hawada sare ee dhulka soo gaaray. Daqiiqado yar ayaa ka hartay intuu soo dhacayo. Albaabadii waa la xirayay, darbiyadiina way ruxmayeen. John wuxuu soo jiiday Allison iyo Nathan, kadibna dhagaxii ayaa dhulka ku soo habsaday. Aamusnaan ayaa ka dhacday, waxayna dib u xasuusteen gurigoodii hore, dhalashadii wiilkooda Nathan, iyo kahor intaysan wax walba isbedelin. 9 bilood kadib wax jabaq ah lagama maqlayo dhulka. Magaalooyinkii dambas ayay noqdeen, hawadana waxaa weli ka buuxay boor. Ugu dambeyntii waxaa intii badbaaday laga soo daayay albaabada. Dhulka weli saameyntii burburka ay ka muuqatay. John, Allison iyo Nathan waxay isku diyaarinayeen inay dib u bilaabaan noloshooda cusub. Dhulka cidla ayuu ahaa, laakiin waxaana la tusayaa shimbir nool oo duulaysa, taasoo kuu muujinaysa in noloshii caadiga ay dib u soo noqotay. Magaca filimku waa Greenland oo soo baxay sanadii 2020. Subscribe saar oo noo reeb like saad u caawis kanaalka. Intaan muuqaal ka lamid ah aynu ku kulmayno sidaasi nabadgelyo.